حوجك صدقات كبث الولاية سبحانه وتعالى. إلهي وحاول قفنا قد موجود يا خي إلهي أنا تمسك لي آمين ليك كمان تمسك لي خير المسلم داعينا إلهي تمسك لي يا إلهي قفنا تعسيب قفنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا ساعة كسوة اعتناء وكسوة يعني مجال الرئيسة وحنقول إن ما أنت إن نقول إن حسبتان ضمن كائن مجال البربراء قلب كسوة قلب أنا قلت هلا قلنا عسبتان كوروبا هذه أنا يردي بقول نقضاء أنا وحنا كسر عنا جروب أما أورو آلات ده الجودة كلينا إنترنت كالفيسبوك اللي يلاحظه اللي يلاحظه مدرسة إندر جرتك مدرسة إندر جرت وتيسي أصدق معها وحويا وجروب ويسوي مدينة اللي يرفع بدن الرئيس ما لنا وجدين كمان والبكت شو ده أو إلى كن كرودا في يجلفتوا دي اسمه يقانان وما هذا يجلفتوا دي سيقانا أدون كاسي كوكل الشران واحد كلي يسوكنا وحويا إن أرمها نحكي هذا أرمها سمال لنا فلانقية ولا جهاد له مدايم كلا جت شو نحكي هذا صدق سنوات أيها واحد نصاق هذا بالوحي لقبان كرو وبشهر رمضان تاه لجو كردين كرو نحكي هذا ودن كيين لقبته واحد مركز على إسلاجتي إسبتال هذا دمركا إنه يهم لها وجوبه هذا فضل له سنة كي يجوه الرئيسي الواحد الأوري العجلة فركون يشرب بقول الدولة جاريسي تاسنا واحد قلب سيدنا وكلا ومركب باهيدا كوبيس كرسنة باهيدا يبقى هي الجوري في إسبتال كديم كي مجال الهربيسة سنة كي حتى الصور ده في رمضان تهرة العجلة لما تكون يافر بقول هاي أيام الأوري وحيدا الجوري في إسبتال كديم كي مجال الدولة نحن هذا سنة كان أي ما أنت تشوفونه بيشي دويدا رمضان أي سيدي وكلا يمكن يورين كريين أو يوري
oo guud ahaan isku noqotay lacag celcelis ilaa 2400 meelahaas noqonaysa oo dollar waana tamaanta halkan aynu u joogno waxaanu markaa la soo xiriirnay maxaan ku dhahdaa maamulka isbitaalkaasi bal wixii baahi ay u baahan yihiin maadaama aan lacag ahaan aan kaash ahaan loogu wareejinaynin bal wixii baahi laga dabooli karo waxay markaa noo sheegeen inay ugu baahi badan yihiin sariiraha iyo furshaanta iyo qalabka caynkaas ah oo isbitaalka cariiri ku ah oo isla markaana ururo kale oo sidan oo kale ay ka caawiyeen maxaan ku dhahdaa xaq ciid noqotay hadii raashinka ay noqoto laakiin baahidaas ay tahay mid iyaga maxaan ku dhahdaa ugu weyn anagoo taas ka duulayna waxaanu maxaan ku dhahdaa lacagtii aan markaa ururina sadaqada ahayd ay noo geysay oo maanta halkan aan ku wareejinayna waxa weeyaan sariiro iyo furaashyo iyo gogosha lagu kubli lahaa ay noqotay oo tiradooda uga bixi doona maxaan ku dhahdaa fiisayn iyo sharaxdo waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii maxaan ku dhahdaa gacanta ka geystay ururinta sadaqadan qof waliba karaankiisa uu bixinayay qof $1 bixiya iyo qof $100 bixiya iyo qof ka badiya iyo qof inta u dhaxaysa bixiyaba runtii waxa ahayd wax maxaan ku dhahdaa adduunka meel kasta maxaan ku dhahdaa laga soo kontribuuteeyay ama wax laga soo daro laga soo ururiyay gudaha iyo dibadda intaas ayaana noqotay waxaan aad ugu mahadnaqayaa markaa maxaan ku dhahdaa dadkii sadaqadaas maxaan ku dhahdaa ka qayb qaatay shakhsiyaadka ahaa iyo dadkii urur ahaan uga qayb qaatayba oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahdaa gruubka dahabka oo iyagu si gruub ahaan xafiis ahaan iyagu contributionka ama ururinta sadaqadaas qayb uga qaatay maxaan ku dhahdaa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa maxaan ku dhahdaa gudoomiyaha gobolka maxaan ku dhahdaa maamulka dawladda hoose qabhayaha maxaan ku dhahdaa dawladda hoose maamulka isbitaalka magaalada Berbera oo iyaguna halkan nagu soo dhaweeyay oo maanta qalabkaas maxaan ku dhahdaa rasmi ah ugu wareejin doona maxaan ku dhahdaa isbitaalka sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabweynaha reer Somaliland mar walba maxaan ku dhahdaa ka qayb qaata ama qayb ka ah ururinta maxaan ku dhahdaa iyo caawinta dadka baahan ee reer Somaliland waxaan jeclaan inaan ku soo dhaweeyo Fayso Barre oo inoo sharaxda lacagtii qiimaha la ururiyeynta ahayd iyo alaabta tirada ay maanta wareejinayno inta ay tahay walaalkan qooble ayaa loo dhameeyay hawsha intii badnayd waxaan salaamayaa dhammaan dadkii u soo dhaweeyey socdaalkan magaalada Berbera oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Saaxil waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qolada dawladda hoose iyo dhammaan maamulka iyo qolooyinka isbitaalka magaalada Berbera inta waxaan ku darayaa waxaan doonayaa inaan anigu inoo sheego lacagtan ururinay waxay ahayd maadaama aan qofkii ka mas'uulka ahaa lacagta ururinteeda iyo asmajii lacagtan ururinay waxay ahayd $2416 kabacdi markaan la soo xidhiidhnay isbitaalka inoo sheegeen inay xagga gogosha u baahan yihiin waxaanu u soo siinay 20 sariirood 50 furash iyo 50kii go'e lagu gogleeyay lacagtiina intaasay soo jartay waxaan u ducaynaynaa dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay contributionka ama tabarucaadkaas ee bishii barakaysneed ee Ramadaan soo bixiyay waxaan leenahay halkii aad ka soo saarteen Ilaahay wax badan idinku bedelo dhammaan bulshooyinka reer Somaliland waxaan ka codsanayaa dadkeena tabaalaysan ee buka ee Ilaahay miirkoodii ka qaaday kulli cid ay sugayaan iyo cid u maqan waa inaga marka inta la nool yahay baa adduunyada wax la isugu qabtaaye insha Allah iska wada warhayno gobol kasta oo Hargeysa ka midna waxa jooga dad buka oo xanuunsanaya marka laga wada warhayo cid walo wax ka geysan kartana ka geysato insha Allah anaga imka 3 sanadood baan wadnay hawsha 3 sanadood baan ku guuleysanay dad aan iskaranayno anagu inteeda Hargeysa ka timid xataa halkan ba qaarkay iskaaya bartay suuqaya keentay dadka kalena in badan baanan aqoonin 800 iyo dheeraad baa gruubka ku jira waa Facebook wax la yiraahdo dadku ay u haystaan inaan wax badan laga faa'iidin laakiin haddii xagga wanaaga laga eego xagga wanaagsan looga faa'iideysto waa laga faa'iideysan karaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa annagana waxaan ugu ducaysanaa hawsha sii wadno sanadada dambana ay noo hirgasho dhammaanteena aynu ka wada warhayno dadkeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahadle mahad ilaahay dibadeed waxaan mahad celinayaa gruubkan madasha indheergaradka runtii halkan lagaga sheekeeyey qoble iyo inantuba ay ka warrameen qaabkay u unkameen ama ay isu abaabuleen waa wax runtii ku ah naadir bulshadeenna in
shabakadahan bulshada ku xidhiidho loo adeegsado wax ummadda anfacaya oo wax ku ool u ah una baahan tahay in badan bulshada laga baraarujiyo in ay u adeegsadaan waxyaabaha ummadda hagardaameynaya aad iyo aad baan guud ahaan groupka ku dhawaadka ama sareba u dhaafay iyagu aan iswaji garanayn isna hayb garanayn isna magac garanayn madasha ku kulmay dareenkoodii bini'aadminimo insaaniyadeed Soomaalilaannimo oo ku jiro ku gartay in ay madasha iskaga contribute gareeyaan iskaga ururiyaan wax ummadooda jilicsanay wax ugu anfacayaan ama wax ku tarayaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ilaahay miisaanka xasanaadkiina haydin saaro waa wax ku dayasho mudan bulshooyinka reer Soomaaliland gudaha iyo dibadbana aan u soo jeediyay in lagu daydo talabada wax ku oolka ee groupka madasha indheer garadku ay waxa weeye marka ay iyagu barbilowga ay u yihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad deeqdani runtii waa deeq ballaaran kuna darmaysa deeqaha ugu ballaaran sanadkan soo gaadhay isbitaalka dhimirka ee Berbera runtii waa mid loo baahan yahay dadka halkaa jiifa ilaahay aqligoodii yani uu ka qaaday inagu waxaynu ku tusayaa inteena meerka qabta inaynu waxa weey u gurmano ka warhayno inta aynu u gargaarno kuwa ayaa ilaahay inaga inoo gargaaraya waxa ilaahay nabadeena ugu adkeynaya horumarkeena inoogu adkeynaya waa inaynu hoos u eegno dadkeena jilicsan hadal badan kama furna runtii saraakiisha iyo howlwadeennada ka tirsan madasha indheer garadka groupka ku kulmay Facebooka iska ururiyay hantida inta leeg soo gaarsiiyay walaaladooda dhibaataysan ilaahay dhimirkoodii uu ka qaaday waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waana mahadsantiin salaam alaykum runtii ilaahay khayr ha siiyo shaqo wanaagsan baa qabateen waana dadkii ugu tacbaansan dadka dhimirka kuwa kala booqashadu way ku badantay laakiin kan xanuunkii bogsigiisii dheer yahay qofkii oo wuxuu haystaa dhaqaalihiisu kooban yahay qoys badan oo noloshuu ka galayayo qofka dhimirka xanuunsanaya ayaa ku dhacaysa marka wixii la taraabo way ka weyn qof xanuunsanaya wax la taraabo runtii aad iyo aad ku mahadnaqaya dhammaantiin halkii ka soo saarteen ilaahay uu ogi subxaanahu wa ta'ala haddaan idhaana halkii ka soo saarteen Allah idin buuxiyana ilaahay baa ballan qaado rabbi waxa uu wama anfaqtu min shay fa yukhlifu yaa bixsan ilaahay baa idin daba marinay ka ballan qaadka ilaahay bay ku jirtaayo ducada uma baahan marka aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa ilaahay idin siiyay insha Allah salaamu alaykum alxamdulillah ilaahay baa ku mahadnaq marwalaadka waxaan aad iyo aad ku sii aqoonyahanka iska saaray inay ku wareegaan oo kuwii ugu jilicsanaa ilaahay garansiiyey waxaa ilaahay ka baan sheekhan inuu dhigay waxa way halkii nin walba uu ka soo saaray wax badan runtii dadkan imika dhex joogin isla kuwii hore soo aragteenba waxa weeyaan dhowr nooc bay isku jiraan qaar baana cid ka dambaysa lahayn qaar baana wax keenaba aan jirin laakiin waxay ku yihiin wax weyn gudiga dibadda runtii waa macaawinada la soo gaarsiiyo waxa la karaa jaamac waxa weeyaan gudiga uu doomin yahay daryeelka dhakhaatiirta isbitaalada aadaha waxa weeyaan runtii daanan fan maaha laakiin sanadka dhan waa laga yaabaa inay wuxuu u hayaan idin yaalaan waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaadkooda u soo celiyo ilaahay caafimaadkooda u soo celiyo idinkana waxaan ilaahay jazakumullah khayr ha ka daalina ku dadaala runtii waxyaabo badan ka helaysaa oo faa'iido ah waa inta idinku sheegaysay dadaan shaqoono sida وتي جودها هم بمتقنا لير علمية لير حفظية مركا الله يكون قريب لنا وحنا نقول تعالى هو كنت فريش يو كل حاجة هو وحنا له هاي
الله يتابع المرجو يلا تنسبه مرجع كم ممتاز لها دنيا كده عافمات كده بلادن ay walaalaha ay qaarqoonyaha ku soo gaarsiiyeen isbitaalka maskaxda ee Berbera oo ka kooban furshaan qoyaal raaxado sariiro runtii ahana agab loo baahnaa runtii aad iyo aad ugu baahnaayeen ilaahay hayda ku daro miisaanka xasanaadkiina jazaaka allahu khayran jazaa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa barasaabka iyo shaqaalaha iyo dowladda hoose iyo mareeyaha xaamaha iyo madaxda kale nagala soo qayb gashay dowladda hoose iyo dhammaan bulshada halkan ay joogtaan aad baan uga mahadnaqayaa waxa runtii aad iyo aad usid mudan maanta isbitaalkani meel hoose laga soo bilaabay oo muddo la soo waday laakiin maanta wuxuu marayaa meelihii ugu fiicnaa wuxuu haystaa dhakhtar psychiatrist oo specialist oo maanta u jooga wuxuu haystaa qualified nursing ku filan shaqada wuxuu haystaa shaqaale hoosaad wuxuu haystaa dawadii wuxuu haystaa dhismihii oo maalinba wixii loo baahdo lagu kordhinayo wuxuu haystaa raashinkii oo ay ganacsatadu la taagan yihiin iyo walaalaha kale ee ma garanaysaa daneeya dadkan ilaa dibadda marka aad iyo aad bay u muhiim maanta qolada halkan loogu timid deeqdan wadiyaqooyahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ilaahay ka abaalmariyo deeqda u keenteen walaalihiina aan xanuunsanay maskaxda ka xanuunsanaya waana mid loo baahnaa noqonna mayso insha Allah sidaan rajaynayno tan tii ugu horeysay aad keentaan tii ugu dambeysay noqon mayso laakiin tii ugu horeysay insha Allah inay noqoto waa wadadaas noo furanto in wada shaqeynaa ayaan ilaahay ka rajaynaynaa waana mahadsantihiin maca gudoomiyaha gobolka iyo madaxda kaleba assalaamu calaykum